waxaan u mahadcelinayaa kulankan qiimaha leh oo beesha beelweynta sheekhaaleed ay iskugu timid iyagoo ka hadlayso danaheeda iyo waxa socdo barnaamijka maanta ka socdo meesha la yiraahdo Muqdisho iyo dowladda federaalka waxaan wada ogsoonahay waayahan inay jirtay qaylo badan oo beeraha sheekhaaleed ka soo baxayso taasoo kaga cabanayaan kursigii beesha sheekhaaleed oo jubbooyinka gaar ahaan degmada Kismaayo yaalay in la xawilaayo oo meel uusan deegaankiisa ahayn lagu xawilaayo taasi macnaha waxa weeyaan sharaf darrada inta dhan dadka ka shaqeynayo oo ugu horeeyo madaxweynaha maxamed cabdullaahi farmaajo iyo in kale oo ognahay oo kursigaas macnaha waxay maanta gacanta kula jirto oo oleynayso in laga soo doorto gasaar gudo iyo gabaaweyn inay soo doortaan kursiga oo oleynayso sharafta ha iska qaadina mana ogolaan doono barnaamijkaas sheekhaal meesha joogta beesha sheekhaaleed waxaan u aragnaa madaxweynaha dowladda federaalka iyo inta kale oo garabka ku siinayso kursiga garabka la saartay waxa way sharaftiina iyo mas'uuliyadda aad macnaha shacabka Soomaaliyeed u haysaan way ka hoos martay sharaf darrada kale waxa ka mid ah qof bini aadam ah oo Ilaahay abuuray oo xoolihiisii la rabo in la dhaco oo idacayaan dadkii lahaa annaga macnaha mas'uulka arkayna dowladda madaxweyne farmaajo uu u horeeyo iyo labada gole ee baarlamaanka iyo ninka madaxweynaha Jubbaland oo ku sheegayna beelweynta sheekhaaleed kursiga degmada Kismaayo yaallo in aanan macnaha waxa qaska laga daayo oo loo arko matalaadii sheekhaal ay ku lahayd degmada Kismaayo deegaan muglana ay macnaha ku leedahay ummadii sidaa ahayd in la yiraahdo macnaha waxa way matalaadii maleedin waa nasiib darro waay waxaan idin leeyahay nimanka hadda la magacaabay waliba si gaar ah waliba ninka dusha ninka u saarayo waa faayasiin sida aan maqlay kuwa kale bartilmaameed ma aanay way jiraan waa la xisaabtami doonaa yoom min al-ayaam wallahi sheekhaal way xisaabtami ragaasna way la xisaabtami doontaa bi ilaahay kariim ninna furay hankiisa ma moola meeshana laga hayaan ognahay dadkana hayaan ognahay waxa ku soo haray kani macnaha waxa way taladii mujrimiintaas ku raacay oo yiri hal laga qaado saacada laga bilaabo beesha sheekhaaleed ma matalayo kursigaas hore laga hadalnay oo kursi beesha sheekhaala ay leedahay cid iyo jifi gaar u leh male kursiga sheekhaala iskale deegaan doorashadiisa horena Kismaayo ahaa waana hal kursi oo beesha sheekhaaleed jubbooyinka degan ay dowladda federaalka ku lahayd kuraastii kala meel kala laga tuuray waan soo ognahay halkii kursi oo u dambeeyay hadana in gidala tuuro nasiib darra uu dhacdo waaye insha Allah ta'ala marka waxaan baar oo gaaban oo dheer u dirayna dowladda federaalka madaxweynaha Fahad Yaasiin aad loo dhawaajiyo oo xildhibaanada iyo dadka hortii ka hadla ka dhawaajiyay kursigaas deegaan doorashadiisa Kismaayo waaye degmada Kismaayo jubbooyin markay kala baxdo waxaan dowladda federaalka aad uga codsanayna inay dadku marhabaabin shacabka mas'uulka ah oo Soomaaliya maanta mas'uulka ah kursigaas Kismaayo laga leeyahay Kismaayo lagu doortay kursi jeeb galay maaha kursi intuu iska qaato intuu iska saarto galaalta iyo meeladaan digay dilmiga la dhahay waa kursi beelweynta sheekhaaleed jubbooyinka ay leedahay beesha sheekhaaleedna suldaano soo jireen 60 sano 70 sano 80 sano ay kuleeyahay jubbada hoose waliba gaar ahaan degmada Kismaayo kursigaas raha imaanka aan anagu hadda saacadan u fadhino gadaal la geeyay iyo nin baa qaatay iyo waxa soo waxaan aqbali doonaa in waxay beeshu qaadan doonto maaha insha Allah ta'ala hadii Allah uu dilo saamxo waxaan marka dowladda federaalka ka codsanayna kursigaas inay meesha u leedahay dowladda Jubbaland oo jubbooyinka mas'uulka ka ah madaxweyne Axmed Maxamed Islaam madaxweynaha Jubbaland sharafta leh waxaan ka codsanay madaxweyne kursigaas deegaanka adigu laga doortay oo madaxweyne ka tawiyaala
beesha iskala la-aada u taqaano waa beesha sheekhaaleed oo ballaarneed oo deegaanka ballaaran kule jubbooyinka gaar ahaan jubbada hoose kursigaas waxaan rabnaa deegaan doorashadiisii in lagu soo celiyo ma qaadan doono ma yeeli doono beesha sheekhaaleed diidda arrintaas rag bilcaan aqoon-yahan xildhibaan waa isku duubanahay kursigaas deegaan doorashadiisii ha lagu soo celiyo axmed maxamed islaam ha u istaago kursigaas inuu deegaan doorashada u lahaa waajib muqadisaa kaa saaran madaxweyne waa meesha darha lagu doortay adaa mas-uuliyadda sidii u haysay haddana waxaan kaa rabnaa kursigaas inaa heshiisa kusoo celiso hadal odayaal iyo siyaasiyiin iyo dhaqan si wanaagsan bay maanta uga hadleen munaasabadan qiimaha iyo sharafta weyn ugu fadhido oo laga hadlayo masiirka iyo kursiga dowladda federaalku ay ku lahayd beesha reer fuqu cumar ee degmadan Kismaayo kursigan waa kursi ku asaysan ama ku madalaysan nambarkiisuna yahay 124 waa maqadis inaan laga wareejin karin magaalada Kismaayo waxaa nasiib darro ah oo aan fariin u diray haddii ay dhacdo cadaalad darro aan sheeganayno inaynu nahay dad islaam ah xuquuqda iyo xaqa uu qofka bini aadamka mudan yahay in la maray habaabayo oo weliba mas-uuliyaddii ugu sarreysay ee madaxweyne maxamed cabdulaahi farmaajo oo aan ku tuhmayno in uu ahaa nin hoggaan wanaag lagu tilmaamo maantana beeshu ay ka cabanayso waa nasiib darro weyn oo u soo hoyatay waxaynu leenahay xildhibaankii ku asaysnaa kursigaasi aan sheegay cabdiraxmaan dheere run ahaantii meel waa shaksi ka dhashay beelweynta reer sheekhaaleed ama reer fuqu cumar ma aha shaksi keligiis awood uu u yeelan karo inuu kursigaasi maray habaabiyo run ahaantii waxaa u sahlayo oo jaraanjara u ah dowladda federaalka uu hoggaanka u yahay maxamed cabdulaahi farmaajo cod gaaban iyo cod dheerba aan ugu baaqaynaa annagoo ah siyaasiyiin aqoon-yahano culimaa uddiin waxgaradkii iyo dhaqankii beesha hoggaanka u ah hadday tahay qaybaha kala duwan ee haweenku waxaan si dhab ah u ogeysiinaynaa kursigaasi inuu yahay kursi horeyna aan oga hadalnay haddana oga hadlayno dhaafi karin aas-aasna uu u yahay gobolka jubbada hoose Kismaayo ninkana horta farmaajana wax aan haysto ma jiro maxaa jira nin anay taqaana inuu ma dhacro dadkiisu wax badanayo dadkiisu wax u siyaadanayo waay ninkaas si loo galan midaas laakiin waxaan la yaabsanahay doqonnimada haysta Cabdiraxmaan Dheere kursigan boorso asay wareema oo dhar ugu diro kursiga waxa iska qabiila iska leh kursi qaf ma lahayn qabiila leh maanta dacwo ku fadhiyo bari ku kala ku fariisanayo dadkaas u dhaxeeya maanta diluusi alxamdulillah inay ku shaqee waqtiga doon ma waa doontaa ma waa doontaa Cabdiraxmaan Dheere waxa uu yaabsanahay kursi wuxuu boorso ay kursi boorso ma noqday wuxuu ta boorso oo dhigtay garab ku gashay oo ugu wareegay mutaqana ila gudi oo mutaqana ugu wareegay oo leeyahay ana iska leh waxa si gaar u leeyahay waxaan rabaa ugu dara oo kaleenta kursiga noo ka dhacay koonfur galbeed inuu mutaqana kan kii oo lama baqo waxa dadka hadda raadinayaan mana yeelo doono kii hore raadinayna kana ku mutadayna dagaalan ku galeena codbeer iyo codgaan waxaan ku leenahay dal iyo dibadda aanu sheegaynaa wixii xaq anaga aan leenahay waa ku dagaalamayna codii af mutaqana waa ugu dagaalamayna yadii gacan baa ugu dagaalamayna wixii anaga aan leenahay inaan ku dhamayno xaq ilaahay ma siiyo waaye tolkayga hurdada ka kaca kursigii baashi u dooda kana wareejintiisa asaga xagga iskaba dhig hadal haan ma buuxishay Soomaali tiraha hadalnay horay u hadalnay haddana hadalnay sheekhaali waxa in leeyahay war hadal ma ah meesha waxay joogtaan naf goosmay taagan tahay farmaajo iyo fahad sideen ku gaarna diyaaradihiina way xiran yihiin wadana lama mari kare sideen ku gaarnaa tolkeeno oo kursiga u soo dhacsana hadal wax ma sheege hadal haduu waqtaraay hore aan soo hadalnay haddana waan hadalnay inta tolkaygaan leeyahay madaxweynaha waxaan leeyahay madaxweynahayni baa tahay dadkii ku soo doorta baan nahay xaqiiqa la siya ma aniga naf ahaantayda
dadka mucaarad iyo muxaafad bay kala yihiin muxaafad iyo mucaarad ay kala yihiin aniga dadka ku ayeedsan baan ahaa mucaaradkaada markay hadlayaan oo hadalka kugu durayaan waan xanuunsan jiray war maxay saa u leeyihiin baan aan dhihi jiray haddase waxaan arki hayaa mucaaradkii waxa ay sheegaan inuu run yahay maxaa yeelay hal kursi oo reer u lahaa oo yaalay degmada Kismaayo waan wareejina nin baan yaan tunka u saara wax aan kaafilayna maaha haddaan nahay haweenka Jubbaland u dhashay oo beesha shaqaaleed ma yeelayno midaada kale waxaan leenahay annaga dad qabiil dhan oo masiir leh ilaa waagi Talyaaniga ilaa Ingiriiska Jubbaland deganayana maanta dad imaada manihi dad wadanka laga soo dhoofiyay manihi waxaan ku abuuranahay Jubbaland waxaan ku leenahay degmooyin waaweyn waxaan ku leenahay tuulooyin waaweyn annaga kursigeena lama geen karo gado Cabdiraxmaanna uma tashan karo odigii doortaa joogo dadkii doorteena joogo odayaashii dhaqanka shalay saxiixeena joogo Jubbaland laga doortay konton iyo koow qof laga doortay haddana way degan yihiin mana yeeleen in laga qaado farmaajana ma qaadi karo ma geen karo hadduu dadkiisa wax u rabo asaga ha geesto asaga madaxweynaha boqol la siiyo ilaa anaga keena ma qaadan karo وإنت تجري وحان لنا هاي دولة فدرال كي يومارك مامل جوبلاند يا بيش عالم كانوا حوشينا كل سلاس وكوية وقف جيل في سكوتر وكوية كل سلاس قف جيل في سكوتر قفنا رجوع عزيزي كرو أدنى معركة الوقار درجي كرو كل سلاس وحا اسكالم بيلها الشيخانات با اسكالم إيه دجا قوالنا الجمهورية خاصة دول الجمهورية المصرية بيش الدجال إيه الشيخانات أيا اسكالم ما لها دين جلو ما لها دين ميلان ما لها دين مقدسو تانا وحالينا هدين الشيخ خالد ومرغبانيا هداجو كان مقالة مقدسو إيا ميلها تدلو وحالينا هدين الدفيرة وشيغا كل سيباس خوف جيب كيسو كمدرو أجل خوف جيب كيسو كيسو كمدرو ومرسانة أيضا وبحثوا تبكش الله دورتو تاس بيش وكسو جيدا كرسيga هلو soo celiyo Jubbaland khaasan magaalada Kismaayo nahay intaan oo masiirkeeda ka hadlayso waa in lagu taxgiliyaa arrimaha dastuuriga ah waa wax muhiim ah bulshada waxay ka qaylisay dawladda bulshada matashaa marka ganacsatadana bulshada ay udub dhaxad u tahay anoo ku hadlayo afka ganacsatada meel walba ay joogaan waxaan leeyahay in arinta beelweynta shaqaaleed ka qaylinayso si qotal loo fiiriyo lagana digtoonaado qofka wuxuu masiirkiisa aga talinayo mise lagu matalo waxaa muhiim ah in loo dhaga nuglaado siyaasiyiinta meel walba ay joogaan mas'uulka ugu sarreeya iyo kan ugu hooseeya waxaan leeyahay in arrimaha laga hadlaayo oo maanta yacni beeshan iskugu timid ee ka cabanayso loo dhaga nuglaado shakhsi uu soo ama jeer la gashanayo ama laga tuurayo maamul goboleedkii Jubbaland isagoo mataqaanaa saddex gobol ka kooban gobol oo macnaha beesha aynan u badnayn saddex gobol ka kooban yahay ma ahan kaliya ma ahan hal gobol oo kooban caasimadan waa Kismaayo maadaama caasimadda Jubbaland ay ku tahay Bu'aale hadda waxa lagu shaqeynayaa caasimadda waa Jubbaland qaasatan Kismaayo waaye ma ahan beesha shalay lagu doortay oo ahayd Kismaayo kursigii in la geeyo gobol kale mataqaanaa shalay aan laga soo dhisay ana mataqaanaa beesha aanan kurida shalay aan lagu joogin in mataqaanaa kursigaas la geeyo waan ka xunahay mar walba dowladda Soomaaliya in mataqaanaa beesha qaasatan shaqaal ee ku tafasho raasteeda ama mataqaanaa dhaqankeeda wax lagu wanaagsan hadda maamulkii ayaa mareysay galba ugu kale waxa lagu diriyay waaskii aan taabacsaneyn oo wax badan mataqaanaa Soomaaliya ama shaqaal soo hogaaminaya ilaa labada waddan ilaa hadda mataqaanaa intuu dhaxaysay waaskii Suudaan Maxamed Muuse Barrow ayaa garanaysa oo Kismaayo tan ugu yimid waaskii loo qosay waaye federaalka kuraasteedii dadoono inaan u istaagno anagoo beeshii meeshii u badneed qaasatan Jubbaland Kismaayo jubbada hoose aan joogno in mataqaanaa mar walba ugu tagrafaro waxaan u maleynayo waxaan annaga nalaga arko waaye nimanka mataqaanaa hadda federaalka haysto sidii madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo Fahad Yaasiin la tariya macnaha inaad kula taliso beeshaada sida lagu baarinayo Fahad Yaasiin wax lagu wanaagsan waaye waxaa sax ah adiga haddii lagu macaarisan ama haddii lagu xafisan yahay meesha ka soo jeedo aad muskanaysaa mar kastaba sababtoo aan kursigan qof kasta uu leeyahay kursiga
kursiga wuxuu ku dhex jiraa 275 xubnood ee baarlamaanka federaalka 43 kursi ee Jubbaland deegaan doorashadooda uu ahaa ayuu ka mid yahay wuxuuna ka yahay lambarka 124 kursiga 124 lama xawili karo hadee mobilka ku iyo yani subaxayna kursiga xawilayo waa farmaajo waxaan leenahay ka joog adeen farmaajo waxaan leenahay farmaajo 19 kursi ee Jubbaland waa u shacbinay gobol waana jecelnahay in wax badan ay ka sii helaan dhowr kursi ee federaalka ah haddii aad meelaha u baalbaarayso adana waxaan ku leeyahay kan waa hawa culumay kursiga iska daa ma xawilno ma qaadno wayseekeeda muhiimkan marka farmaajina intaasaan leeyahay tan kale beesha hore baa loo dhacay galmudug ayaa lagu dhacay way xusuusataa midowgooda kuraasta galmudug meelaha la geeyey oo beesha ay xaq u lahayd waan ognahay meelaha lagu saacidayna waan ognahay waana darajoodna kamaani mahay koonfur galbeed waan ognahay ayadana maxay ahayd insha allah bilaha soo socda waxaan rajaynaynaa in maxay ahayd ay meeshii laga qaaday inuu kursigaas soo laabto gabadha meel ma jirto laakiin annaga hadda haddii gabadha ay degmada siinayaan kabeel ahaan ay nagu xeeranayaan waan jeclaan lahayn laakiin kullay degmada ma siinayaan waxay leeyihiin halkii kursi ee jumada hoose yiili aan gabadh ku guursano aan ku guursanana hadee waa boqorad badno walaalayaal wadama quuno wasiirka iskuulka meeshii qalay maanta waxaa ka mid ah kursiga laga leeyahay waa Ismaaciil ee maamulka Jubbaland laga aaday meelaha kale ee maasab awlan sida maamulka hore maamulka Jubbaland marka kuwaad waxaan u baahnaa maamulka ninka laga leeyahay kursiga dinkale oo uu saxbaya akala kuwaana qodobka labaad gobolka Jubbaland dadka waxaan u baaqayaa kursiga Cabdiraxmaan wata middaas uu leeyahay waxa iskala beesha sheeqaan shalay waxaa siisay sheeqaan madax sheeqaan ku qaatay suldaan baa u siiyay nabadoo baa soo celi mas'uulka wasaaradda Jubbaland nuur Ahmed Maxamed Islaam ayaa u siiyay wuxuuna ka baxay gobolka Jubbaland oo qaasad Kismaayo sigan ku fadhiyo halkan laga doortay wuu ogyahay markuu isiri mataqaana meesha dad marka lagama yeelayo ayaa wuxuu cuskaday inuu mataqaana meel dad uu ku marin karo inuu aado meel uu dad ku marin karo inuu aado iyo mataqaana uu go'aansaday Soomaaliya ma waxay tiri hal sheekh guriga badan geela hortiisa bartaa laakiin ma dheerto maxaa jira ooday dardaraysa geela bay mataqaana ka inaysa maanta dhan geela inta uu daaqay waa la daaqay markuu soo xaroodan waa la soo xaroonaya iyadoo daaqay waxa weeye Cabdiraxmaan waxaan ku dheeraa walaal kursiga adiga maliyada waxa ku leeyahay Soomaali baa mata waxa ku leeyahay beesha reer Umar baa ku leeyahay inaad meesha la aado hunguri xumadaada adigoo 3 jeer oo 2 jeer hore qabtay markii saddexaad hadda ku jiro adiga kaliya dalka mataqaana muxuu ahaa ma joogtid hunguri xumadaada meesha waxa la aado in waa horta ku qaad cid iyadoo sida ku kaalmeynayso waa qalad kale labaad waxa weeye Fahad Yaasiin anaga waxaan leenahay nin magacana weeye nin muxuu ahaa beesha wixii dhibay ninka ka fikir lahaa weeye muxuu ahaa intuu ninka war la soo hoos galo oo la qaado oo meel la geeyo waa arrin aad iyo aad u qaldan weeye igaaskii beesha sheekhaaleed ee ugu jiray 135 waxaan ogsoonahay galmudug markii la dooranay dowladda federaalka xilkii uu hayay in laga qaaday labarkana laga tuuray si aan maamuus iyo sharaf ahayn loola dhaqmay mar labaad haddana waxaa socota oo dhici haysa igaaska kursigii shalay asaga uu saxay suldaanka ee maanta xamar uu joogo igaaskii marixan in uu farmaajo ku wareejiyo farmaajo ujeedadiisa waan garanay wuxuu rabaa beesha sheekhaale inuu dhaco saldanada sheekhaale inuu dhaco kursiga sheekhaale inuu dhaco waan garanay waxaan aad oo la yaabanahay oo wax laga xumaado ah ninka la yaabo Fahad Yaasiin qofku ujeedada hadaf uu leeyahay sidoo qofka ujeedada hadafku uu leeyahay ee la garto wax loo baahan yahay
ilaa hadda ma garanin Fahad Yaasiin waxa kursiga Sheekh Khalid uu beesha sida ugu dhacayo ujeedada uu ka leeyahay ilaa hadda ma garanin waxaan ka codsanaynaa beelinta Sheekh Khalid Xasan waxaan ka codsanaynaa walaalaheena nama kala qabato nama kala qabto waa xumaan waa godob waxaan rabnaa wiilkaas idinku idinka soo jeeya waa wiil aad dhasheen waxaan doonaynaa inaad naga qabataan waxaa ka imaan doontaa aakhiru salaanka taariikh xumo iyo waxaan la iloobaynin iyo waxaan dowladda baro isagaari doonaa imaan doonta haddaadan hadda wiilka qabanin Cabdiraxmaan dheere waxaan leeyahay kursigaas shalay anaa ku saxiixay kisbaan yaala beelweynta sheekhaad baan iska leh malihid adiga mana wax jeeb qof gashan karo farmaajona hadduu isku dayo jeeb ku laga yeeli maayo mana laga yeeli doono waxaan ku leeyahay wiil sheekhaaleed baa tahay tartan kismaayo imaaw shalaa lagaa doortay maantana nasiibta inaad heshaaba laga yaabaa cidi kuma nacbano laakiin taariikh xuma ee adduunka aad ku soo noqon doonin iska ilaali kursi ama waad heli ama waad wayni madaxweynaha Jubbaland waxaan leeyahay beesha Sheekh Khalid kursigaas adaa wakiil uga ah Axmed Maxamed Islaam shay adaa saxiixay xildhibaanada 43 waxaa laga doortay Jubbaland adaa mas'uulka beesha Sheekh Khalidna kursigaas maanta laga bilaabo waxaan cadeynaynaa inaad mas'uul aad nooga tahay haddii aad dayacdo aakhirada adduunka waan ku haysanaa aakhirada adduunka ku sii dalleyn waan ku haysanaa waxaan ka codsanaynaa kursiga inaad gacantaan ku soo celiso wabillahi tawfiiq wa salaamu calaykum wa rahmatullahi wa barakatuh